بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فصل. وفروض الوضوء 6 أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه. إن شاء الله تعالى waxaan gudagelaynaa fannigeena fanul fiqhi, khaasatan kitaabka matn lgaaya wataqriib. waxaan maraynaa cashirkii 6aad. waxaan isla soo gaarnay wuduu'i iyo weysadii, markii aan ka soo hadalnay weelashii lagu weysaysan lahaa, rumaysiga isigana sunno ah. waxaan halkan isla soo gaarnay weysadii. weysada waxay leedahay wax lagama maarmaan ah oo furuud loo yaqaano, furuud ama arkaan. waxay leedahay wax loo yaqaano sunan. sheekhu wuxuu nooga hadli doonaa insha allah furuusha, kadib ayuu sunanta noo sheegi doonaa. waayahay. furuud lwuduu'i faslun. hada kan faasilun waa midka wax kala saaro. wa furuud lwuduu'i weysaqaadka faradyaalkiisa 6 ashyaa shayaal oo 6 waay. waxyaabaha weysada aan looga maarmin waa 6 shay, oo haddii 6daas shay la waayaa macnaheeda waa weyse ma jirto. kan ugu horeyn waa anniyatu, niyo waa. awalan waa inaad niyeysataa in aad weysaysanaysid. waa inaad niyeysataa in aada u dahaaro qaadanaysid salaad, istibaaxatu salaad, inaad salaad banaysatid. ama inaad niyeysataa rafcu lxadath alasqar, xadadka asqarkaa inaad xukunkiisa meesha ka qaadaysid, aad ka koryeeleysid. anniyatu, sheekhu wuu noo idlaaq, wuxuu yahay anniyatu waa niyeysanaysaa. niyada marka daliil waxay leedahay inama alacmaalu binniyaat. acmaasha oo dhan waxay ku ansaxaydaa niyo. niyo la-aan camal ma ansaxo. camalka waxaa u asal ah niyo, in aada niyeysatid. marka weyse inaad weysaysanaysid, niyadu waxay un kala soocaydaa shaygan macaada, wejigan aad dhaqanaysid caada miya oo fiish iyo waxaas ma iska dhaqaysaa wasakh, mase waa cibaado oo waa weyso. maraatibtana way kala saartaa niyada mar shaygan ma sunna mase waa waajib. marka hadda waxaa kala saaridaa caadada iyo cibaadada. marka niyo waa la imaanaysaa in ay tahay wejigan aad dhaqanaysid midkii cibaadada ahaa, ficilkii lagu banaysanayo salaadaha oo la-aantiis aanan ansaxaynin. marka anniyatu niyo waaye cinda gasli wajhi, wejiga dhaqidiisa agtiisa la niyeysto. markaad wejiga dhaqaysa waxaa niyeysanaysaa alwuduu, weyso. farad alwuduu, weysada faradka ah. adaa alwuduu, weysada gudinaysa. rafcu lxadath alasqar, xadadka asqarka inaad meesha ka qaadaysa. xadad asqara wixii weyse jibiya la yidhaha. xadad asqar wixii weyse jibiyo. markii weysada kaa jabto xugun waxaa imaanaya salaad inaysan kuu banaanayn, kitaab inaadan taabo karin, inaadan dawaafi karin. xukunkaas inaad meesha ka qaadaysid ayaa niyeysanaysaa khalaas. anniyatu niyo waaye cinda qasli wajhi, wejiga dhaqidiisa agtiisa la niyeysto. markaa wejiga aad dhaqaysid, weysada kow markaa bilaabaysa laga wada. wejiga waliba juska ugu horeeya, qeybta ugu horeysa markaa dhaqaysid ayaa niyeysanaysaa. waqaslu, midda labaad waqaslu wajhi, wejiga dhaqidiisa waa. wejiga wuxuu leeyahay dhir iyo ballacba, intooda waa inaad dhaqdid. halkay tinta kasoo bilaabato qaaliban lafgarka inta laga yimaado, lafgarta laga yimaado hoosteeda, lafgarta hoosteeda, dhegtan laga bilaabo dhegta kale
wejiga xadkiisa waa intaas, waa inaad wada gaarsiisid wixii tin ku yaalo, wixii jibil ah, isha meelahan oo ilyarta la yiraahdo iyo meelaha fiishka ku istaago iyo halkaas waa inaad tartiib u faajootaa aad gaarsiisid. dhexdeeda cidna kuma darsin, sanka dhexdeeda cidna kuma dirsan, laakiin inta kale waa inaad gaarsiistaa daahir wajhi. waqaslu wajhi wejiga dhaqidiisa waaye. waqaslu yadayni labada gacmood dhaqidooda waxaa laga soo reebaa markii wejiga uu yahay sunnadan ku arki doonaa oo gar badan uu ku yaalo, tinta ay badan tahay, markaas inaad gudaha ka dhaqdid waajib ma ahan, banaanka laga dhaqaa. hariidaha iyo garka markay bataan gudaha laga dhaqmaa, laakiin intay khafiif ay yihiin xataa gudaha la gaarsiinaa, markaas jirka gudaha ku yaalo tinta ka hooseeya ayaa la gaarsiinaa. waqaslu wajhi wejiga dhaqidiisa waaye. waqaslu yadayn laba gacmood dhaqidooda waa ila almirfaqayni maca almirfaqayn labada xusul la jirkooda, labada xusul ama labada suxul la jirkooda. gacmahaad ku xujinaysaa, gacmaha waxaa labadaas suxul inaad gaarsiisid mirfaqaynka. mirfaqaynka waa inay ku jiraan, marka mirfaqaynka marka inay ku jiraan wuxuu waa ka kor wax yar inaad kasoo bilaawdid. meelahan iska ilaali laabatadaas ah, waxaa yeelay markaa inta saanta adigu asaaska dhaqdo waxaa suurtagal ah meel laaban inay jirto oo biyaha gaarin, marka iskaas kala fidi xoogay kala fidi farahan dhexdoodana inaad ka faajootid waa sunno. waxay biyaha in gaaran suurtagal waa inaysan gaarin suurtagal waa, marka gadaal noogu imaan doonta insha Allah. laakiin waajibka waxa waaye in mirfaqaynkaas la gaarsiiyo meel banaan laga soo tagin, mirfaqaynka yaa fara foodooda. ومسح بعض الرأس مدح قاركيس إن مسحها. مسح بعض الرأس مدح قار كميدة إن مسحه. تنتا أما جبلك مدح كميدة. تنتا وحصر ده تنتا ماش أتكمس حيسد. هذا سوج جديد مدح حد كسين كبحين. حياتين دار هذا لا هاي تنتا فود أكم مسحت. تنتا أنت كستاس أد مسحضينا وفود أكم مسحت دي لسوق هذا. تنتا حد مدح حد كيس أكبح. ويساس ما أنصحنا اللي مسحاس ما أوصل أنصحين. waayahay marka tinta waxaad ka masaxaysaa meel haddii la soo jiido tinta xadka iska bixin dhanka ay u baxayso u jiifanayso, haddii la soo jiido tintan qaybtan hore halkan usoo jiifataa, qaybtan halkaas u jiifataa, qaybtan halkaas u jiifataa, qaybtan halkaas u jiifataa. dhankay u jiifanayso hadaa laga bixi haddii loo jiido hadaysan ka bixaynin meesha adag ka masaxda haddii meeshaas ka deganaynin ku ansaxda. bacdi in la masaxaa waa waajib ayuu noo yahay anaga madhab shaafici, laakiin madaahibta qaarkood waajib ayuu u yahay. macnaa waajib waxaa ah in la wada masaxaa waajib u ah, laakiin anaga waxaa waajib noo ah in bacdi laga masaxo. madaahibta qaarkood in rubac laga masaxo, laakiin aan sheekha inuu wuxuu qabiyaa bacdi un haya juz yar ma ahan, rubac ma ahan, madax rubaciisna ma ahan, juz yar in la masaxo ayuu ansaxa. isagoo ka qaadanayo magacaas masaxa ah. masax maxaa loo yaqaanaa? waa meel yar lagu tiro biyo lagu tiro, meel yar biyo isaga tiraysa. sardi waxaan soo sheegnay in tintaas in meesha ka bixin bas. wamasxu bacdi ra'si madaxa qaarkiis in la masaxa. marka dadka timaha dheerdheer leh waa inay iska fiirshaan tinta ay masaxayaan, haddii ka gibirkiiba masaxaanba. waqaslu rijlayni labada lugood dhaqidooda waaye tan shanaad waa. waqaslu rijlayni labada lugood dhaqidooda ilaa kacbayni maca alkacbayn labada anqow in laga qabo, labada anqow la jirkooda. labada anqow waa labada laf oo sida mirfaqaynka usoo taagtaagan oo lugaha ah, labadaas laf waa inay ku jiraan meesha, marka ayaga korkooda laga soo bilaabaa. cirbaha waa la iska ilaalinaa, cirbaha jeexjeexa leh inay biyaha ay gaaraan waajib waaye. watartiibu tartiibu waaye calaa maa waj iyo qaab loosoo tartiibiyo, laysugu soo aadiyo, laysugu soo habeeyo. dakarnaa anaga usoo sheegnay qaabka wajkaas aan usoo sheegnay, qaabka usoo sheegnay in loo tartiibiyo. qaabka usoo sheegay sheekh wuxuu niyuu ka bilaabay, wejigu ku xijiyey. niyada iyo wejiga waa mara waaxida. marka wax niyeysanaysa waa wejiga ka bilaabay iyo niyada ku xaadir kuwa wejiga bilaabay. kadib waxaan ku xijiyey gacmaha, kadibna masaxuu ku xijiyey, kadibna luguhu ku xijiyey, kadibna wuxuu u daba marshay tartiibkii oo uu sheegay. tartiibkiina intaanu ka dhalnaa waxay niya la timid wejiga dhaqitaankiisa niyada hal mar ay ahayd,
gacmaha dhaqday, madaxa masaxday, lugaha dhaqday. tartiibkaas waajib waaye maxaa yeelay rasuulka alayhi salaam ficilkiisa laga qaadanaa, marna asoo iskhilaafsiinaya lama arkin. marna asoo iskhilaafsiinayo oo gacmaha ka hormarinayo masaxa lama arag, macnaha masaxa kasoo hormarinayo gacmaha lama arag, wejigoo dhaqay masaxday lama arag, asoo lugaha kasoo hormarinayo lama arag. tan kale aayadda oo ka hadlaysa weysada yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum. aayaddaas waxay isdhexgeliyay masax iyo qusli. munaasabadda waxay ahayd in qusliga la xijiyo, masaxana gooni loo dhigo. hadduu tartiib waajib ahaan lahayn waxay leeyihiin culimada leesma dhexgeliyeen. marka faqsiluu wujuuhakum wejiyada dhaqda, wa aydiyakum gacmihiina dhaqa ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum la soo gelsha, marka lagu xijiyey madaxiina masaxa, wa arjulakum lugihiina dhaqa. waa la isdhexgeliyey. faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi wa arjulakum ilahi subxana wa taala mariya. maadaama sidaas oosan dhihin, rasuulka ficilkiisa aan lagu arkin, soo iskhilaafsi aan lagu arkin, waajib waayey tartiibkaas soo qaateen. halkaas waxaan uga baxnay faraaishii iyo waajibaadkii iyo arkaantii weysada.